nageeye kaliya maahe dagaalamayaasha ay ku xisaabtamayeen oo dhan ayaa ku geeriyooday dagaalka kuwaana kama duwana Hirshabelle waxa ay gundhigu ay la socotidba dagaalka qawaariijta lagula jiro waxayna kamid tahay meelaha Soomaaliya marka la fiiriyo gulii hore looga gaaray aan dib looga laabanin mana jirto meel laga baxay sida aad ka warqabtid qawaariijta waxa ay ku jiraan waqtigii ugu adkaa naflacaarinnimadooda ayaa keentay inay isku dayaan magaalooyinka qaar ee amniga ah ee Hirshabelle inay carqaladeeyaan waxay isku dayeen saddexdii cisho ugu dambeysay dhowr magaalo in ay dhibaato ka geystaan oo ay dhibaateeyaan dadka shacabka ah hase ahaatee ciidamada daraawiishta dowladda Hirshabelle ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada deegaanka ayaa ka hortagay dhammaan isku dayadaas oo ay ugu dambeeyeen kuwii maanta ka kala dhacay Alkawsar Cali Axmed iyo weerarkii saaka ay ku qaadeen halka liidada Cadow Gurey oo ku taala gobolka Hiiraan marka taasi waxay ku tusinaysaa in dhammaan duulaanadii ugu dambeeyay ay qaadeen in iyaga lagu jibiyay lagu baabiyo hub looga furtay sidoo kale duqeyn deegaanada qaar ka dhacday oo cagta lagu mariyay dhammaan dagaalamayaashii qaska baryaanka wada Hirshabelle ayaa jirtay runtii Hirshabelle baraarug qawaariijta la xiriira ayay ku jirtaa howlgalkana waxay ugu magac dartay Hirshabelle iyo howlgalka dabargoynta qawaariijta marka dabargoyn marka la yiraahdana waxay tahay in la soo afjaro shaqada waqtigaas socota marka qawaariij waa laga sifayn doonaa maalmaha soo socota dadka Hirshabellena si nabadgelyo ayay guud ahaan isku dhaxmari doonaan iyadoo hadda ay tahay marka loo fiiriyo dhacdooyinka maalmahan dhacay dowlad goboleedka ugu xasiloonida badan marka laga fiiriyo ka badqabka qawaariijta oo qawaariijta sida istidada kale u joogto si aan ahayn saameyn ku yeelanin baryahan dambe markii ugu horeysay oo tababar ay Hirshabelle daraawish soo xirtay ma aha waa qaybta shanaad ee booliska runtiina waad garan karaysaa daraawiishta istidada dhan wada leh oo ku dhisan tahay marka dhowr dufca ayaa soo qalan jibisay Hirshabelle ma aha tababarkan ay dadku ku soo baraarugeen tababaro hore jiray iyo ciidan hore ugu soo baxay Hirshabelle waxa ayna ku suntan yihiin inay cashar u dhigaan qawaariijta marka ciidamada oo isbahaysanaya ayaa sabab u ah runtii Allah ayaa mahad oo turagal ka dhigay in magaalooyinka ay isku dayeen dhamaantood ay ku hungoobeen deetana aysan ka laabanin iyagoo bad qaba oo halkaas raq iyo ruux iyagoo ku beelay ay markaas qawaariijta guuldaro ugu tahay kooxda sida xogta inuu ku haynay tababar ay u soo idleysatay qaar kale oo militariyaad cusub ah oo ku soo biiray oo qaarkood ay ku jireen kuwii Soomaalinimada inta ka tagay ka doorbiday gudnimada nageeye iyo abwanada kale gumaadiid uu ku jiray waadna ka warqabtay oo tababarkaas markii ay soo idleysteen ayay isku dayeen meelaha qaarkood inay ku dhiiradaan intii ay tababarka u soo xireen oo ay dagaalka u soo direen waa kuwa jabay xog sirdoon ayaa ahayd nageeye kaliya maahe dagaalamayaasha ay ku xisaabtamayeen oo dhan ayaa ku geeriyooday dagaalka kuwaana kama duwana meel qawaariijta ay ku sugan tahay oo Hirshabelle ah oo hadda la og yahay ma jirto wax dagaal oo imika socdo ma lahan dhammaan deegaanada iyo degmooyinka Hirshabelle gacan amni ayay ku jiraan furimaha iyo goobaha ay colaadda ku fureenna saddexdii cisho la soo dhaafay waxa ka shaqeynaya madaxweynaha dowladda Hirshabelle mudane Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaawe marka madaxweynaha waxa uu u guntaday inaysan soo galin magaalooyinka waaweyn ee istiraatiijiyada ay u arkayeen qawaariijta ka Hirshabelle nabdoon oo ka caagan qawaariijta inaynu ku dhawaaqna ayaa sugeynaa maalmaha soo aaday